بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida aad uga soo qayb gasheen shirkan jaraa'id oo aan idinkula wadaagayno xogtii ugu dambeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxtooyada qaranka waxaan ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo aad u wanaagsan sida aan horey u sheegnayna tan iyo markii madaxweynaha laga helay dhamaadkii toddobaadkii tagay COVID-19 ma jirin wax saameyn muuqata oo ay ku yeelatay caafimaadkiisa maadaama uu madaxweynuhu talaalnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si caadi ah u wataa shaqadiisa qaran isagoo raacaya talooyinka iyo habraacyada bahda caafimaadka ee la xiriira COVID-19 waxa uu uga mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed ducadii iyo bogaadintii ay la soo wadaageen sida ay soo jeediyeen dhakhaatiirtu waxaa bari laga qaadayaa madaxweynaha baaritaan la xiriira COVID-19 si loo hubiyo isbeddelka natiijada caafimaad maadaama ay dhowr maalmood ka soo wareegtay tan iyo baaritaankii hore dhanka kale madaxweynaha oo shaqadiisa sii wata ayaa khadka telefoonka kula xiriiray walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uuna ugu hambalyeeyay sanad guurada 45aad ee xorriyadda dalka Jabuuti madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay dawladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhaxalka ay wadaagaan ummadda Soomaaliyeed kana turjumaysa halgankii midaysnaa ee dadka Soomaaliyeed ay u galeen xorriyadda sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda dalkeena oo ku astaysan inta u dhaxaysa 26 Juun ilaa 1 Luulyo waxa uu ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed in munaasabadan awgeed wadajir loogu istaago gurmadka dadkeena ku dhibaataysan abaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray xukuumadda inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ku dhibaataysan gobolada la ildaran abaaraha iyadoo madaxda dawladda iyo xubno wasiirro ah ay gurmadkaas u qaadeen gobolada haddaba iyadoo laga jawaabayo amarka madaxweynaha ee gurmadka abaaraha ayaa madax ay hogaaminayso wasiirka gargaarka Marwo Khadiija Maxamed Deeriye ay sahay gargaar gaarsiiyeen magaalada Xudur sahadan gargaari waxay socon doontaa toddobaadka xorriyadda oo idil waxaana la geyn doonaa meelaha ay sida daran abaaruhu u saameeyeen aad baad u mahadsantihiin wax su'aala dalka abaaraya ka jira maxaa loo qaadan waayay talada ergeyga soo jeediyay ee u yareeyay maamulka Afrika ama loo dhaafayo maadaama dad gaajo ay jiraan maxaa loo yareyn waayay iyada oo wali la weyneynayo maalmaha xorriyadda oo la siinayo muhiimadda iyo ahmiyadda ay leeyihiin ayaa haddana madaxweynaha amarkiisa hadda dhageysanaysay warbixinteeda waxa ku jirtay in madaxweynuhu amray in munaasabadan awgeed dadka abaaraha si gaar ah loogu gurmado wax badan oo la qaban jiray oo ku saabsanaa munaasabada xorriyadda oo la baajiyay baa jira lacagii ku bixi jirayna waa lacagaha hadda magaalooyinka ay Xudur ceel waaq iyo gaalkacyo ay ka mid yihiin loo wado oo dadka loogu gurmanayo waqti ayaa la socday sayfkiisa ayaa laga sheegay COVID-19 ragga kale caafimaadkooda ma la baaray oo wax bara ma laga hayo bulshada ilaa wax la soo bandhigay madaxweynaha kaliya waaye ragga kale la socday waqtiga maxaa ku dhacay aad baad u mahadsantahay ayub Somali Cable ayub waftigii madaxweynaha la socday aniga ka mid ahaa intayadii madaxweynaha la socotayna shalay iyo maalintii aan midba waan la baaray maalintii Jimcaha soo bixinay waan la baaray maanta shalayna waan la baaray dhamaanteena waxaan ahayn negative oo cid laga helay ma jirto mas'uuliyadda guud ahaaneed ee dawladda iyo qof ahaan nooga saaran inaan hadii cudurkaasi jiro is ilaalinaan anagu fulinayna ma aanan soo dhaxgalnay dadka hadii wax cudurka qaba ay nagu jiraan marka dhamaantii waxaan nahay negative test bana laga qaaday meelaha sida aad u sheegtay la deeri karin intii la deeri karo waa la gaari inta aan la gaari karin maadaama arrin amni ay tahay iyaduna waxay qayb ka noqonaysaa qorshaha amniga ee dawladda insha Allah weey waa saxmo faktiga ka tirsan su'aasha waxay tahay dawladda Soomaaliya inta soo tahay dawladda xukuumadda soo dhisayso soo madaxweynuhu uu sameeyay qof cusub haddana yaqaan istiraatiijiyadii iyo midba qorshayaashii lagu shaqeyn lahaa dalka ay abaaro badan
dabcan waxaa moodaa inta badan su-aalihii lagu weydiinayay madaxweynuhu inta badan waxyaabuu ka hadlayay oo u badnaayeen arrinta abaaraha dadka abaaruhu ay sameeyeen waxaa jiraan goobo badan oo ay goodoomiyeen al-shabaab qorshe u jira oo amni ah oo madaxda ay ku fiirsan tahay sida hadda gobolka boqol oo kale oo ay goodoonsan tahay muddo dhowr sano ah waxay ku dhow yahay 20 sano qorshe u jira oo ugu dirsan dowladda Soomaaliya in dadkaas abaar kaliya ay saameyso wax loo geeyo maahan qorshe amni oo dadkaas looga xoreynayo ma jirtaa aad baad mahadsan tahay arrinta amniga iyo go'doonsanaanta magaalooyinkaasi waa su'aal aad miisaan u leh waxaanan samayn doonaa haddii ilaahay idmo waxaan jawaab idinkaga keeni doonaa xafiiska amniga qaranka buulo burde iyo gobolka bakool amni ahaan waxaa xafiiska amniga qaranka uga qorshaysan iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si aad uga warraysaan dadkan ugu gudbisaan jawaabteeda waxaan idinla wadaagi kulanka dambe insha allah haddii Israel ay soo dalbato inay xiriir Soomaaliya la samayso maxaa dowladda Soomaaliya uga qorshaysan arrintaas arrinta jihaynta siyaasadda dalka oo wax badan ay iska bedeli karaan maadaama sidaan idin sheegay Israel aanan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed waxaa la yidhi wax gunti lagu qarin kara ma ahan arrintaas wax hoos loo oran karo ma ahan kulli talo weyn baa dowladdu ka gali doontaa waana talo shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo howlo badan u taala wax nin iyo laba ay go'aan ka gaari karaan ama anigu hadda jawaabteeda ku siin karana ma aha su'aal ma santa yaa kala su'aal qaba yaa kala su'aal qaba aad baad u mahadsantihiin